السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسود channel كنا سؤال كميديا وما لنا قبيسة تاريخنا يكون بيجنت عايشين اللباتن كبيش اللي حاد لو كوني اللباتن ككسود هذا قضى بدنا وركنا وقدر كرون مدحوينا قرقر يوفدوه قامنا يوقاردك مدى عدادو سومالي جيبوتي ديدي قرار كلو تاغير ايو مصر سومالان او بلاوي فلنتا قضب كميدا هشيسيدي اي لغاسي دولة فدرالك سوماليا كينشون oo hakita law military kadan head kurida koonfureed magacaygu waa Muslim fadlan hadan u cusubtahay channelkan subscribe nasar si aad ula socoto wararkeena iyo warbixinada nagu dambeysay adigoo maadsan aadna ku soo dhawaad warkii faahfaahsan madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye wafdi balaaran oo kacay ayaa shalay soo gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud boqolaal dadweynaha ayaa madaxweynaha ku soo dhaweeyay safafka hore ee madaxtooyada Cadaado madaxweyne qorqor iyo wafdi horkacay ayaa horay safar u soo maray deegaano badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud iyo Galmudug oo ay ka mid yihiin Gaalkacyo Hoobiyo Bacadweyne iyo meelo kale madaxweynaha Galmudug ayaa safarka Cadaado ka hor xarig ka jaray isbitaalka guud ee saldhigga degmada Balxo oo ay isku tashi ku dhisteen bulshada deegaankaasi dowladda Soomaaliya iyo Djibouti ayaa diiday in ansixiyaan qarar ka soo baxay ururka jaamacadda Carabta oo lagu taageeray Masar oo xiisad la xiriirta wabiga Niil ay kala dhaxaysay Itoobiya qararkan ayaa ku baaqay in Itoobiya ay dib u dhigto buuxinta biyo-xireenka ay ka sameynayso wabiga Niil inta ay heshiis buuxda kala gaarayso dalalka Masar iyo Suudaan oo ka soo horjeeda qararka jaamacadda Carabta ayaa waxa soo gudbiyay Masar waxaana ansixiyay dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ururka marka laga reebo Soomaaliya iyo Djibouti Soomaaliya ma shaacin sababta ay u diiday qararkii shalay hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawaad ayaa sheegay 23 bishii Maaj in Soomaaliya ay mowqif dhexdhexaad ah ka qaadatay muranka u dhaxeeya Masar iyo Itoobiya ayaa sheegtay in bisha Julaayo bilaabayso buuxinta biyo-xireenka oo ay ka dhisanayso meel ku dhow xuduudda ay la wadaagto Suudaan oo ku qulqulo wabiga Niil Masar oo wabiga Niil u yahay shaqweyn ay biyaha ka helaan boqolaalka milyan ee qof ee dalkaasi ku nool ayaa diiday inay biyo-xireenkan la buuxiyo iyadoo aan heshiis laga gaarin maxkamadda ku taala Somaliland ayaa shalay amartay in la sii daayo fanaaniin muddo ku xirnaa halkaasi fanaaniintan oo kala ah Barwaaqo Qalanjo iyo Axmed Qaale ayaa muddo 2 bilood ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Hargeysa markii ay maxkamaddu ay ku weyday wax dambi ah sida ay sheegtay xariga fanaaniintan ayaa yimid kadib safar ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku qabteen bandhig faneed iyo heeso labadan fanaan ayaa si doontooda la hadlay warbaahinta iyagoo u mahad celiyay maxkamadda oo martay in la siiyo xorriyadooda iyo dhammaan cid kasta oo ka gacan geysatay sidoontooda marar badan ayaa sidoo kale waxa magaalada Hargeysa lagu xiray dad magac ku dhaxlay bulshada Somaliland oo ka soo jeeday isla deegaanka maamulkaasi kadib markii ay safar kala duwan ku yimaadeen magaalada Muqdisho dhinaca kale sideenta fanaaniintan ayaa waxa qayb ka tahay heshiisyada dowladda Soomaaliya iyo Somaliland ay ku wada galeen shirki ka dhacay magaalada Djibouti waxaa jira hanjabaadyo waqooyiga ka soo yeeray ee ahaa inay ciidamo geynayso agaga militariga gacaagan ee ku yaala xadka u dhaxeeya labada dal warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Kuuriyada Koonfureed ku eedeysay inay ku xadgudbeen ayna burburiyeen heshiis ay labada dal galeen 2018 Kuuriyada Waqooyi tan Koonfureed ayaa waxa kala qaybiyay agaga military kacaagan halkaas oo ku teedsan kala qaybinta labada dal soona jiray tan iyo dagaalkii Kuuriyada ee 1950 labadii sano ee la soo dhaafay dowladda Kuuriyada Koonfureed ee saldhigeedu yahay Seoul ayaa waxa isku dayday in goobtaasi ay ciidamo badan joogaan ay u bedesho ag nabadoon guud ahaan taasi ku soo gabagabeynaa war wixii dalka dibadda naga soo gaaray inta warcaankan oo kala kulmi doon waxaan kaga tagay sidaas iyo amaanaha